بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله walaalyaal soo dhawaada see leeyahay ma la fiican yahay khayr ma jiraa ilaahay dalkayagii khayr ha ka warsan allah ka soo yeeriyo waayni salaamahayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta aad joogtiin waxaa ogtihiin walaalayaal arrin baa jirta wadankii dagaal baa ka socda nimankii carbaha u shaqaynahayay iyo gaalada wadankii waxay rabaan in dagaal ka dhaco sababtoo ah waa niman la udbareysaynayo oo la haysto imaaraad baa la leeyahay laakiin imaaraad inaysa ahayn waa ogtihiin waa nimankii koofida yaraa marka waxa weeye walaalayaal dad baana dibadahan ololaha inta badan wuu ka socdaa dalkii dagaal baa ka jira nabad bal waa rabadaane caawa markii taraawiixda la tukado dalka ha loo duceeyo ha la isku duceeyo nimanka wixii dhib wada in ilaahay qabto oo xabadooda ilaahay biyo ku fardhiyo wixii daacadana ilaahay dalka u reebo walaalayaal bal hadalku ay ii dambeeya bal heeskan dhagaysta wax yar wadaniga walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiilkaas waa maqlayseen wuxuu yiri maxaan galabsaday saqiir ama waxaan kusoo koray dhib iyo dhibaato marka waxa weeye soomaaliyay dhibkana haysta maanta waa ujeediin banaanadiina waa ku cadibanahay gudihiina waa ujeediin wadankayagii waa lagu soo duulay diin hadday noqoto iyo dhaqan hadday noqoto iyo daaqsi hadday noqoto waxaana la adeegsanahayaa rag soomaaliyeed saad u jeediin marka waxa weeye aniga waxaa ila quman in aqligu shaqeeyo oo la fekero ciidamada soomaaliya waa salaamahayaa salaan ka bacdi waxaan leeyahay raggii shalay mushaar la-aanta ini dhigay oo saad ku sugnaydeen iyo xaaladiina waad ogeydeen qabiil yaan la fiirinin diintiinu yaysa qabiil noqonin iimaankiinuna yuusa qabiil noqonin soomaalinimadiinuna yaynasa qabiil noqonin taytalka aad wadatiin oo militariga oo muxuu ahayd ragga dhan oo wadanka waardiyanaya yuusa qabiil noqonin dalka ka fakera dalka qofkii dan u haya oo dal iyo dibad iyo xoolo iyo bad iyo biriba ka difaacaya raaca qabiilla ka gudba adduunka wadamo gaalaa diin aan haysan baan la joognaa oo waxay aaminsan yihiin inay noolaadaan iyo inay nabadgelyo helaan bas un ku fakerahaya annakoo islaana oo diinta muslimka haysana oo walaala oo qaraaba oo ehela oo isku dala oo isku luuqadana maanta waxaad u jeediin dalkii ayadoo u rabadaan ay tahay oo bil cibaado ay tahay oo la rabay in la isku samro oo la rabay in la kala xishoodo oo la rabay in la isku duceeyo
ayaad xabado isku qaadateen ragga marka sidaa samaynahaya oo duulimaadka soo qaaday yaa ninkay rabaan ha ahaadeen ama xagga dowladda ha ahaadeen ama xagga labadaba intaba waa qaldan yihiin waxaa la rabaa dadka masaakiinta caruurta aan qixi karin dadka waayeelka dadka dhimbir kara oo muxuu ahaydan maskaxdoodu dhammayn oo aan carari karin dadka dhaawaca dadka isbitaallada ku jira wax dadkaasoo dhan kama fakaraysiin nimanka marka waxaan leeyahay mucaaradka oo diiday qofkii doorashada diidan anigu ma qabo inuu wiilkan muxuu waddanka maamulahayo u diiday ma fahanteen soomaalidana waxa weeye waa jaqafka iyo tuur waana dad wada blues ah minisba ma taqaana soomaalidu ku dar weeye sababta ah waxaad ogtihiin xamar markii waa la wada joogay markii tug meel soo galo muxuu samayn jiray waa wada ogtihiin aqli baa leedihiin wuxuu samayn jiray markii guriga lagu qabto asagaa wuxuu bilaabi jiray wartuugga qabta waa tuuggii intuu wartuugga qabta fagax markii laga daba yiraahdo oo laga daba yaaco ayuu dib intuu usoo noqdo isagii baa wax la weydiinaya maandhow maxaa dhacay tuug baa la cayrsanaya waxaa samaysiin tuugada ha raacinina khaa'imiinta ha raacinina kuwa carabaha iyo koofiyartu lacag siiyeen ha raacinina dalka dantiisa ka fakera dalka mustaqbalkiisa ka fakera qabiil ma jiro waddamadii 100 sano 30 sano 40 sano ka hor dagaalamahayaan waddamadooda joognaa oo naqaabilay oo sharcina siiyey dad badan oo halkan Yurub ka tagay ama Westernka ka tagay baana dalkii galay ma qabiiladiina raacdeen ma baawo dadkiisoo lama rabin inaad maskaxdii aad halkan kala tagteen waddanka geysiin maxaa waddanka ka qaldan maxaa dadka ugu turu laadihiin ma kursigiina fiirsanaysiin ma lacagta inaan alfanayn inaan ogeyn baad fiirsanaysiin waxaad samaysiin ragga systemka dawladda haya maantay waxaa laga rabaa meel alla meeshay rabta ha ka dhacdo nimanka mucaaradka hadday qaldan yihiin idinkoo aan leynaynin oo dhibaato u geysanaynin xirxira faanti maxamed siyaad markuu dalka qabsaday allah u naxariistee raggii dowladnimada u soo halgamay oo calanka keenay wuu xirxira muxuu u xirxirahayay dalku inuu xasiliyuu rabay markuu xasiliyana xarigii wuu ka sii daayay idinku marka waxaa la rabaa xaq haddaad ku taagan tihiin soomaali ilaahay oo dhan baad u dhantihiin qabiilayni kan maqal ma jiro dalku waana deeqaa waana naga badan yahay qofka qaldan oo aan saxnayn qabiil ha ku raacinina ehelnimo ha ku raacinina diin ha ku raacinina kii qaldan waa qaldan yahay sharciga waa in meesha brotokool ka jiro dadka kala hagahaya maahan in la yiraahdo kana muxuu ahayd reer hebel xagee maanta la jooga caalamka ciisamadii baa la degay markaas hadda waxaad ku noqoteen qabiil hawiye iyo daaro maxaa ka hadlaysiin waxaas xagee laga qoraa xagee waxaas ka socdaan xagee adduunka looga dhaqmaa ya wadamadan qabiilay ku dhaqmi jireen maantana ilaa 4 fac bay tirsadaan ma fahanteen waa famiil oo ninkaaga iyo caruurtaada iyo kusiin oo ina adeerkaaya waa sislingin oo ina adeerkaa saddexaada brulig iyo afraada wax kaloo ay tirsadaan ma jirto nin walba dantiisu raacda saasoo ay tahay nin walba meeshu ka soo jeedo iyo meeshu salka dhigto waa yaqaanaa ma fahanteen annakana qabiilan waxna taraynin ayaan daba joognaa waxaan u sheegayaa askarta Soomaaliyeed maanta haddaad ku dhaawacantiin idinkoo nin qabqablaa daba jooga wallahi inuusa isbitaalku ugu imaaninka u horeeya allah caafiyo kuu imaan maayo nin caruurtiisii dibadda geystay oo caruurihiisi wax u bartaan ha u dagaalami nin aan dalka Soomaaliya dantiisa wadin ha u dagaalami nin aan sharciga ku taagnayn ha u dagaalamin waad ogtihiin dhibaatadaad soo marteen askarta Soomaaliyeed nin walba wadankiisa inuu u dhintaa fiican dalkiisa inuu u dagaalamaa fiican qabiil ka gudba dadka masaakiinta ayaa la qaxinin oo aan tabarta lahayn oo aan gaari haysan oo aan gaadiid kala haysan oo aan awlaad xoog la haysan oo aan magaalada ka qaxi karin taa ma ku fikirteen uqubadaas idinka in ku socotaa wallahi dadka waayeelada iyo dadka masaakiinta oo dhimbirka iyo caruuraha yaryar iyo maxaa wax dadka masaakiinta oo marasta oo dhan dhibaatada aad u geysanaysin inkaarahaas idinka in ku socotaa jooga ilaahay ka baqa ninkii qaldan oo kursi ku
kursaa ku waalateene ninka qaldanoo kursi u waashayo inaad calfanaysa ilaahay baa og teendhaa xagga laga dhisay beesha caalam war beesha caalamku yay tah annakaa beel caalam isku ah annakaa ehel isku ah annakaa soomaaliya annakaa walaalaa ha la ysku tanaasulo waxaan in la calfanahayo ilaahay baa og